waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Secret Society of Second Born Royalists. haddaba waa kan filinkiiye daawo oo taxadar. filinku wuxuu ku bilaabanayaa wadan yar oo lagu magacaabo Aleria. wadankaas waxaa joogta gabar markaa lagu magacaabo Samantha, waxayna ka dhalatay qoyska boqortooyada Aleria iyadoo loola dhaqmo sidii amiirad ahaan. si kastaba ahaatee walaasheed ka weyn oo lagu magacaabo Eleanor hadii jeer waxay heshaa waxa ay rabto si markaa ay uga xumaato Sam. dhan kale boqorkii Aleria oo ahaa markaa Sam aabaheed wuxuu ku dhintay markaa shil diyaaradaas markaa uu waday walaalkii. sidaa darteed Sam hooyadeed oo lagu magacaabo Catram waxay la wareegtay qasriga si markaa ay u maamusho dalka. dhowr toddobaad gudahood Eleanor oo ah gabadha markaa weyneyd ee Sam ka weyneyd waxay noqon doontaa markaa 18 jir, waxaana loo caleema saari doonaa boqorada Aleria si ay u bedesho markaa hooyadeed. subaxii xigtay Sam waxay la socotaa markaa wiilkaas lagu magacaabo markaa Mike-na waxa dhalay ilaaliyaha markaa dhulka boqortooyada. waxay sameeyeen ololo markaa ka dhina boqortooyada iyagoo wadooyinka markaa ku soo bandhigaya muusigaas oo markaa soo jiidanaya dadka markaa ku agdhow. si lamida meesha waxaa yimaaday booliska. Sam waxay isku dayday markaas inay ka mashquuliso booliska, laakiin si lama filaana waxay ku dhacday markaas dhulka sababo markaa la xiriira calaamada taraafikada. kadib hooyadeed ayaa lagu soo celiyay oo qasriga markaa joogtay, waxayna u sharaxday in dadka jooga meeshaas aysan ku faraxsanayn markaa nidaamka dawladda, laakiin hooyadeed way ka diiday taas, waxayna u sheegtay inay yihiin markaa dad laga tiro badan yahay. maalintii xigtay Sam waxay joogtaa markaa dugsiga, waxay la kulantay markaa gabar la yiraahdo Roxana oo ahayd markaa gabar aad u caqli badan. intaas kadib waxaa layna tusayaa markaa xabsigaasoo markaa aad loo ilaaliyo. halkaasna waxaan ku aragnaa 2 ilaalo ah kuwaasoo raashin markaa u geynaya nin lagu magacaabo Inmate 34. marka uu cuntada cunayo wuxuu cuntada dhexdeeda ka helayaa jabsiitar oo ku qarsoon markaa tufaaxa dhexdiisa, wuxuuna ku rakiban yahay qalab markaa u ogolaanaya inuu awood weyn helo. wuxuuna isticmaalayaa awooddaas si markaa uu jibiyo albaabka ugana baxsado markaas meesha. kadib intii ayuu samaynayaa albaabka ayuu jibin, xaruntiina markaas saas ayuu kaga baxsaday. dhanka kale Mike iyo Sam waxay ku tababaranayaan markaa istuudiyaha muusiga. tababarkooda kadib Sam waxay la kulmaysaa markaa alaabtaasoo markaa ahayd alaab aabaheed isticmaali jiray, waxayna dib u xasuusanaysaa markaa aabaheed iyo yaraanteedii. waxayna habeenimada ka qayb galaysaa xaflad ka hor caleema saarka markaa Eleanor oo ahayd markaa walaasheeda ka weyn, taasoo markaa la rabo in loo caleema saaro boqortooyada markaas dalka. si lama filaana waxay xasuusanaysaa markaa inay Mike ka ballan qaaday inuu xafladda la yimaado calashaan inay xafladda isu raacaan. kadib been ayay markaa hooyadeed u sheegtay, isla markiiba waxay bedelaysaa markaa muuqaalkeeda waxayna aadaysaa markaa Mike. si kastaba ahaatee maadaama aysan haysan markaa kaarkii meeshan lagu geli lahaa waxaa ka mamnuuca markaas inay galaan xafladda. nasiib wanaag waxay la kulmayaan markaa shaqaalaha albaabka dambe. Sam ayaa awooday markaas inay aragto nin markaas meel fog ka soo gelaya isagoo markaa gelinaya numbarka sirta ee albaabka. arrintaas ayuu markaa la yaabay Mike. kadib waxay gelayaan markaa xafladda habeenkii oo dhanna markaas xafladdaas ayaa la joogay. si lama filaana Sam ayaa markaa waxay awoodaa inay maqasho markaa dhawaaq kastoo baxaya oo ay ku jiraan markaa garaaca wadnaha dadka iyo sidoo kale codadka cayayaanada. waxayna dareemaysaa deganaansho la'aan iyo dawakhaad markaa tiro badan, taasoo markaa ku sababaysa inay demiso alarmiga markaa dabka si loo joojiyo markaa xafladda. taas awgeed waxay ku mutaysteen markaas in la xiro iyaday Mike. markay xabsiga ku jiraan Mike markaa wuxuu gartay inay wax ka khaldan yihiin saaxiibadii. wax yar kadib waa la soo daayay, waxaana soo kaxeeyey markaa waalidkood. Catram waxay go'aansatay markaas inay gabadheeda u dirto dugsiga xagaaga. dhan kale maxbuuskii 34 ayaa si qarsooniya markaa xaaskiisa ula hadlaya isagoo ku ammaanaya markaa fikradda ay tufaaxa markaa ugu soo dhex qarisay. waxaana la ogaaday qofka markaa isaga xidhay inay tahay markaa Catram. maalintii xigtay Sam waxay dhigataa markaa dugsiga, waxayna la kulmaysaa gabadh la yiraahdo markaa January iyadoo Sam markaa uga sheekaynaysaa in aabaheed ay saaxiibo ahaayeen Sam adeerkeed. waxaa kaloo dugsiga la dhiganaya Mateo, Tuma iyo dabcan gabadhii markaa aan horey u soo aragnay ee Roxanne. daqiiqado yar kadib waxaa markaa fasalka ka soo muuqanaya macallinkii markaa ka mas-uul ahaa kaasoo lagu magacaabo James. wuxuuna daha ka qaaday in mid kastoo markaa iyaga ka mida uu yahay markaa boqortooyo ayna u qarsoon tahay markaa awoodo sare aysan iyagu ogeyn. wuxuuna intaa ugu daray in ujeedada markaa dugsigan ay tahay markaa in tababar lagu siiyo si markaa ugu biiraan dadka markaa qarsoon ee awoodda sare leh. waxaana soo baxday Catram inay tahay markaa madaxa barnaamijkan, taasoo ka yaabisay markaa Sam in hooyadeed markaa ay tahay madaxa barnaamijkan. intaas kadib waxay u sharaxday in sababta loo tababaraya ay tahay inay ilaaliyaan boqortooyooyinka, ay ka ilaaliyaan markaa dhammaan hanjabaadaha iyo sidoo kale dambiilayaasha dunida oo dhan. warka xun ee markaa ay ardada u sheegeen waxa weeye qofkii aan ku soo bixin tababarkan in laga taatirayo markaa dhammaan xasuusihiisoo dhan, uusan xasuusan doonin inuu awood sare leeyahay. waxayna bilaabayaan markaa tababarkoodii ugu horreeyey
si kastaba ha ahaatee ma fududa sida markaa ay u muuqato. qolka waxaa ka buuxa hubka laysarka kaasoo isla markiiba markaa tooganaya Tuma. si tartiiba ardadu markaa waxay bilaabayaan inay ogaadaan awoodooda sare. Roxana waxay ogaanaysaa markaa inay awood u leedahay inay noqoto markaa midaan la arki karin, halka awoodda Tuma isagana ay tahay wax kastoo markaa dadka uu amro inay sameeyaan, alashaan qof kasta waxa uu amro inuu samaynayo uusan cidina wax ku diideyn. dhan kale Sam waxay iska dhigaysaa markaa inay dareento dhammaan agagaaryada iyadoo markaa isu ogolaanaysa inay dhaqaaqdo si markaa ka dhaqso badan kuwa kale. sheeko dheer kadib dhammaan ardadu waxaa usoo dhammaaday tababarkoodii ugu horreeyey. intaa kadib January waxay markaa awood u leedahay inay xaddo dhammaan awoodaha kuwa kale si markaa ku meel gaara, halka Mateo uu awood u leeyahay markaas inuu xakameeyo cayayaanka. kala fadhiga kadib gabdhuhu markaa waxay isla wadaagayaan dhibaatooyinkooda. maalintii xigtay ardadu waxay sii wadayaan markaa tababarkoodii, halkaasoo James uu ugu sharaxay inay markaa u baahan yihiin inay awoodooda xakameeyaan sababtoo ah waxay leeyihiin markaa awood sare oo markaa iyaga u gaara. James wuxuu u xilsaaray markaas mid kastoo iyaga ka mida tababar gaara. Sam ayaa markaa loo sheegay inay diiradda saarto markaa dhammaan codadka oo ay ku dhagaysato markaa dareenkeeda sare, halka Tuma la siiyey eygaasoo laga rabo inuu markaas amarkiisa maqlo. Roxanana waxay ku khasban tahay inay la soo baxdo markaa awooddeeda sare iyadoo markaa cimilo aad u daran ay jirto, halka Mateo isna markaas tababarkiisa looga dhigay inuu xakameeyo markaa cayayaanka. January ayaa markaa waxaa la keenayaa barkadda dabaasha, halkaasoo laga rabo markaas inay ilaaliso awooddeeda. waxayna isticmaalaysaa awood ay ka soo xaday gabadh loo yaqaano Anna, taasoo kartideeda ku neefsan karta markaa biyaha dhexdooda. mar kale James wuxuu tijaabinayaa markaa ardadiisa xilliga markaa qadada, isagoo markaa si ula kaca u keenaya cunto markaa sumaysan. habeennimadii Mike aabihiis ayaa wuxuu arkay markaa wiilkiisa wacaya amiiradda, wuxuuna kula taliyey inuusan u dhowaanin markaa qoyska boqortooyada sababtoo ah ma ahan heerkiisa. maalintii xigtay Sam waxay u timid markaa hooyadeed, taasoo si la yaab leh markaa u tustay xarunta markaa dhulka hoostiisa, halkaasoo waxyaabo badan oo gaara markaas ay ku kaydsan yihiin. Catram waxay siisay markaa Sam farsamooyin kuwaasoo ay ku hanan karto markaa awooddeeda sare. intaa kadib dhammaan ardadu waxay ku guulaysanayaan markaas inay hantaan awooddooda sare marka laga reebo Roxana. Sam waxay samaynaysaa markaas inay si sax ah u qiyaasto qaar ka mida markaa codadka, halka Mateo uu ku fiican yahay markaas inuu xakameeyo shinnida, eygina wuxuu adeecay Tuma. January-na waxay ku guulaysatay markaas inay biyaha dhexdooda ku neefsato. mar hadday Roxana tahay qofka markaa aan ku guulaysan tartanka, James ayaa markaas si bareera ugu hanjabay iyada. ugu dambeyntii waxay maaraysay markaas inay hesho awooddeeda sare, awooddeeda oo ahayd inaan markaa la arki karin. ardadu waxay markaa ugu dambeyntii gaareen heerkooda ugu sarreeyey. James aad buu markaa isna ugu farxay natiijada. si kastaba ha ahaatee habeennimadii ay markaas si lama filaana u kiciyey ardada, isagoo markaa ku qasbaya inay sameeyaan markaa hawsha ugu horreysa, hawshaasoo ah markaas in la ilaaliyo dahabka. waxayna yimaadeen markaa goobtii. Sam waxay maaraysay markaas inay maqasho shanqadha markaa tuugada, waxayna daba socdeen markaa tuugadii. nasiib darro waa la khiyaanay. markay soo laabteen waxay arkeen markaa dahabkii oo la xaday. James wuu ka niyad joogo markaa iyaga, wuxuuna go'aansaday markaa inuu joojiyo tababarka markaa maalinta xigta. dhan kale Sam ayaa waxay u sheegtay markaa Mike inuusan imaan iyadoo markaa aan u sheegin waxa jira, laakiin isagu markaa aad ayuu uga cadhooday. maalintii xigtay fasax yar ayaa markaa la siiyey dhammaantood, waxayna go'aansadeen markaas inay aadaan xeebta. fasaxa kadib waxaa isla socda markaa Sam iyo January. Sam ayaa markaa waxay ku casuuntay qasrigooda, iyagoo dhuumanaya ayay markaa tustay istuudiyaheeda. si lama filaana Mike ayaa markaa istuudiyaha ka muuqday, isagoo markaa gebi ahaanba xanaaqsan. daqiiqado yar kadib maxbuus 34 ayaa soo muuqday oo ardadii markaa ku weeraray awooddiisa u gaarka ah. ka hor inta uusan bixin waxay maqashay markaa Sam isagoo markaa ugu yeedhaya magac yaraanteedii uu aabaheed ugu yeedhi jiray. James ayaa markaa amraya inay isdejiyaan, laakiin Sam way ka diidaysaa, waxayna samaynaysaa markaa inay daba gasho. ugu dambeyntii waxay heshay markaa kaynta uu degan yahay. dhan kale James ayaa markaa isku dayay inuu ilaaliyo. markii soo gaadhay wuxuu sheegay markaas inuu adeerkeed yahay. intaa kadib waxay imaanaysaa markaa January oo awooddeeda u isticmaalaysa. macallinkii oo dhaawacan ayaa markaa isbitaalka la geeyey. dhan kale Sam hooyadeed waa inay runta u sheegtaa markaa gabadheeda, waxayna u sharaxaysaa in adeerkeed uu aabaheed dilay, isagoo doonaya markaa inuu kursiga ku fadhiisto, waana sababta markaa ay xabsiga ugu xidhay. Sam hadda waxay dalbanaysaa inay aragto markaa adeerkeed, waayo hadda waxay ogaatay inuu yahay adeerkeeda dhabta ah, waxayna markii dambe ku micnaynaysaa in ujeeddadiisa dhabta ay tahay inuu dumiyo boqortooyadan. intaa kadib Sam waxay la kulmaysaa markaa walaasheeda ka weyn, waxayna u sheegaysaa haddii markaa boqortooyada ay qabato inay wax badan ka bedeli doonto. dhan kale ardadu waxay oggolaadeen inay ka soo qayb galaan markaa xafladda caleemasaarka. habeennimadii Sam waxay go'aansatay markaas inay booqato James oo isbitaalka yaala, wayna ka raaligelisay wax kastoo markaa dhacay, isna markaas wuu cafiyey. waxaa la joogaa maalintii caleemasaarka
waxaana ka soo qayb galay dhammaan markaa boqortooyinka adduunka. Si kastaba ha ahaatee, Tuma ma awoodo markaas inuu isticmaalo awooddiisa sare, halka January ay awoodo markaas inay isticmaasho awooddeeda. Si la mida awooddii Tumana ay iyadu markaa xaday, iyadoo markaa powerful ah ayay si aamusnaana markaa u gashay xarunta dhulka hoosteeda ah, waxayna ilaaliyaha ku amartay inuu Edmund ka soo daayo markaa xabsiga. Kadib waxay ku soo noqonaysaa markaa saaxiibadeed, iyadoo ku amraysa markaas inay raacaan. dhan kale Sam waxay ogaatay markaa in January ay la socoto, sidaa darteed waxay u carartay markaa guriga Mike, iyadoo markaa weydiisanaysa garab. marka hore wuu yar diiday, laakiin dib ayuu markaa ka ogolaaday. Samna way ka cudur daaratay, waxayna u sheegtay dhammaan sirteeda. aakhirkii way isku biireen, waxayna ku guulaysteen markaas inay qabtaan January oo qiratay markaas inay heshiis la gashay Edmund. waxayna dib ugu noqonayaan dhankaas iyo ardadii, iyagoo go'aansaday inay Edmund markaa gebi ahaantiiba joojiyaan. Sam, Tuma iyo Roxana waxay awoodeen markaas inay mashquuliyaan isaga oo si guul leh markaa ugu soo jiitaan qolkaas oo ah markaa qol yar. Den waxaa la sameeyey markaas in la daciifiyo dhammaan awooddiisa. dhammaadka filimkana caleemasaarka ayaa la dhameeyey iyagoo aan wax carqalada la kulmin. hadda Eleanor ayaa ah boqoradda rasmiga ah ee waddanka Alleria. Sam, Roxana, Mateo iyo Tuma ugu dambeyntii waa la aqbalay. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan channelka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan like garee si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashadaada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga markaa ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.